dhageystayaal ku soo dhawaada shabakada xiriirka news qaybteedii raadiyaha waxaan idinku haynaa barnaamij gaar ah oo ku micnaysanayno xaaladii ugu dambeysay ee dalka Masar oo ognahay qalaasii ugu dambeeyay ka socday warbixin gaar ah ayaan idinka haynaa waxaan idin soo jeedinayaa aniga oo ah Khada Warsame dhageystayaal ku soo dhawaada mar labaad barnaamij gaar ah oo idinka hayno xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Masar oo barnaamij gaar ah oo ku milcisanano xaaladii ugu dambeeyay dalka Masar saad la wada socotaan ba dhageystayaal waxaa toddobaadkii ugu dambeeyay ka socday dalka Masar mudaharaadyo balaaran oo looga soo horjeedo xukuumadda Xusni Mubaarak iyadoo dadweynaha aad faro badan isku soo bixin wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalka Masar sida magaalada Qaahira, Alexandria, Suez iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalkaasi dadweynaha isku soo baxay wadooyinka waaweyn ee Qaahira iyo magaalooyinka kaleba ayaa dalbanayay in xukunka ka dago madaxweynaha dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak oo muddo 28 sano ah hayay xilka madaxweynaha ee dalka Masar ilaa iyo markii uu bilaabay mudaharaadyada toddobaadkii hore ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad gaaraya 300 oo qof kadib markay isku dhaceen ciidamada booliska iyo mudaharaadayaashu mudaharaadyada ayaa sii xoogeysanaya maalinba maalinta ka dambeysa dalka Masar gaar ahaan magaalooyinka Qaahira iyo Alexandria oo maalinba maalinta ka dambeysa dad aad u fara badan ay isku soo ururiyaan fagaarayaasha waaweyn gaar ahaan fagaaraha weyn ee ku yaala bartamaha Qaahira ee loo yaqaano Tahrir Square madaxweyne Xusni Mubaarak ayaa habeenkii Jimcaha kala diray dawladdiisii isagoo sheegay inuu soo dhisayo dawlad cusub taasoo waxba ka bedelay mudaharaadyadii ka socday dalka Masar iyadoo dadweynuhu ku adkeysanayeen in Xusni Mubaarak uu ka dago xukunka dalka Xusni Mubaarak ayaa maalintii shalay Sabtida magacaabay xukuumad cusub isagoo soo magacaabay madaxweyne ku-xigeen iyo ra'iisul wasaare beesha caalamka ayaa dareeno kala duwan ka bixisay rabshadaha ka socda dalka Masar ee lagu codsanayo in Xusni Mubaarak ka dago awoodda dalkaas iyadoo dawladaha Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalku ay taageero muujiyeen talaabada uu qaaday Xusni Mubaarak ku kala diray dawladdiisa isla markaana uu soo magacaabay dawlad cusub dhinaca ururka mucaaradka ah ay ku tilmaameen inuu yahay urur xag jir ah loo yaqaano Akhwaanul Muslimiin dalalka carabta ayaa inta badan ka gaabsaday kaadlida arrinta ka taagan dalka Masar iyadoo hogaamiyayaal wadamo badan oo carab ah ay ka cabsi qabaan in arrintani saameyn ku yeelato wadamadooda iyadoo sidoo wadagsoonahay oo sidoo kale rabshado maalmihii ugu dambeysay uu ka socdo wadanka Yemen oo isaguna lagu codsanayay inuu ka dago xukunkaasi madaxweynaha Maxamed Ali Abdullah Salah wadamo badan ayaa kala baxay dalka Masar diblomaasiyiintii iyo dadweynihii kale ee caadiga ahaa ee ku noolaa dalka Masar sida dalka Israa'iil oo kala baxay diblomaasiyiintiisii iyo dadweynihii kale ee Israa'iil ee joogay dalka Masar iyagoo uga digay in dadweynaha Israa'iiliintu ay u safraan dalka Masar inta qalalaasuu ka jiro dalkaas iyagoo ka cabsi qaba in dadweynahaas waxyeelo ka soo gaaro qalaasaha iyo rabshadaha ka socda halkaasi wadamada kale ee kala baxay dalka Masar waxaa ka mid ah wadanka Turkiga oo 2 diyaaradood u soo diray dalka Masar si looga daadgureeyo dadweynaha Turkiga ee ku nool dalkaasi khadka telefoonada ee dalka Masar ayaana si fiican u shaqeynay iyadoo la sheegay in dawladdu ay khadka internetka ka goysay dalka oo dhan hawada sare ee magaalada Qaahira ayaa waxaa dul heehaabaya diyaaradaha qumaatiga oo kacay loo yaqaano helicopterka iyadoo fagaaraha weyn ee Tahrir Square ku yaala bartamaha magaalada isku soo bixin dadweyne aad far badan oo dalbanaya in Xusni Mubaarak iscasilo isla markaana uu ka tago xukunka dalka uu ka dago waxaana maanta waxaadaas ku soo biiray mudaharaadayaal ka socda dhinaca garsoorayaasha iyo looyaro fara badan oo howlgab ah iyagoo sheegay in loo baahan yahay in waqtigan uu yahay waqtigii uu Xusni Mubaarak xukunka ka dagi lahaa dhinaca kale xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Masar ee Akhwaanul Muslimiin ayaa maanta markii ugu horeysay la hadlay saxaafadda tan iyo markii rabshaduhu ka bilaabmeen dalka Masar toddobaadkii hore
mas-uul u hadlay akhwaan muslimiin ayaa sheegay inay waxa dhacaya uu mas-uul ka yahay xusni mubaarak loona baahan yahay inuu ka dago xunka isagoo caddeeyey isagoo ka codsaday in xisbiyada mucaaradku ay midoobaan si dowladdaas cadaadis loogu saaro si ay xukunka uga dago xusni mubaarak. intaasi waxay ahayd barnaamij gaar aan ku eegaynay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka masar oo ay ka socdaan mudaharaadyo aada u xoog badan maalinba maalinta ka dambeysa kasii cuslaanaya. intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. intaan barnaamij la mid ah aan ku kulmi doono waa aniga oo khadar warsamo ah waxaan iiga tegayaa saas iyo nabadgeliyo.